صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي وحين كجرنا casharadii online-ka ahaa ama ardada lagu dubayay intii suuragala halkan waxaan ka sii wadnaa marka chemical properties of alkenes ka ayaan weli sii wadnaa oo waxaan ka soo hadalnay addition reaction-kii aan soo dhammaynay iyo dhammaantood halkan marka waxaan qaadanaynaa kii ugu dambeeyey chemical properties ka waxayna 3 reaction bay galaan oo loo yaqaano alkenes ka 3 reaction bay qaataan oo ay ka qayb qaataan kan ugu horeeya waxayna addition reaction buu ahaa way soo aragnay waxaan soo qaadanay polymerization oo isagana waa kii labaad iminkana waxaan soo gabagabeynaa chemical properties ka iyadoo aan raacin doono isomers ka iyo stereo isomers wax la yiraahdo laakiin waxa ugu horeeya ta chemical properties ka qaybtiisii koowaad chemical properties ka qaybtii saddexaad ma ka wada ama reaction ka saddexaad oo ahaa combustion waxayna 3 reaction waaweyn bay galaan oo ah addition reaction iyo polymerization kii saddexaadna wuxuu ahaa combustion of alkenes baan ka bilaabay hadii la eegno like alkenes marka maadaama iyagu ay hydrocarbon ay yihiin labadaba alkene iyo alkene marka halka way isaga mid marka like alkenes sida alkenes kan ku naqaanay alkenes baa kuwa la yiraahdo ama family-ga ama homologous series ka alkene ka la yiraahdo burn in oxygen iyaguna maxay ku gubtaan oxygen-ta to form soo saaraan sida lagu yaqaan carbon dioxide iyo water markastoo hydrocarbon uu gubto wax soo baxa waa carbon dioxide iyo water iyaguna marka maxay yihiin waa hydrocarbons way alkenes sida alkene la mid yihiin good example-da markaan aan ka bilaabno ethene bay ka bilaabaynaa ethene burns in oxygen as shown below ethene waxay ku gubataa oxygen-ta sida aan halkan ku aragno waatana ethene C2H4 oo gas weeye room temperature-ka oxygen baa lagu daray maxaa soo baxay carbon dioxide iyo water baa soo baxay marka reaction kan waa combustion waa oxidation baa lagu sameeyay maxay ethene oxidation kana waxa la yiraahdaa combustion ku waa nooc ka mid ah oxidation ka laakiin wuxuu kaga duwan yahay isagu it releases energy buu soo saaraa marka baasha loo yaqaan ethene markii oxygen-ta lagu gubo waxa ku soo bixi doona carbon dioxide iyo water ayaa soo baxaya waa marka sida lagu yaqaan marba shaygu hadduu hydrocarbon yahay waxay ka siman yihiin markay gubtaan waxa soo baxa carbon dioxide iyo water kan labaad example kale waxa weeye propene iyadana waa prop waa 3 way waataan soo sheegnay ethene bay ka bilowmaan iyagu ma laha hal carbon ma laha methane waxa la ahaan jiray alkene laakiin methane ma jirto marka bay ka bilaabanayaan ethene bay ahayd maxaa ku xiga prop intaasna wax markasta haddaa aragto waa dhowlba ma meesha ku jira marka propene iyo burns the same way iyadana si taa la mid ah ethene-ta oo kale ayay u gubataa oo sidoo kale waatana propene waatana C3H6 waxa lagu daray 3.5 oxygen molecule waxa soo baxay 2 mol oo carbon dioxide iyo 3 mol oo carbon dioxide 3 mol oo water marka ethene markii oxygen lagu gubo waxa soo baxay carbon dioxide iyo water ku kala duwanaadeen molarity-ga oo kan 2 mol iyo 2 mol way carbon dioxide laakiin water-ka kan waa 2 mol kan waa 3 mol molarity-ga la eegi maayo ama stoichiometry-ga la eegi maayo laakiin product-ga la eegaya product-ga waa ka siman yahay carbon dioxide iyo water way labadaba marka ethene plus oxygen waxa soo baxay maxaa weeye carbon dioxide iyo water ayaa soo baxaya tan saddexaad ama example-ka saddexaad waxa weeye butane waa 4 butane burns in oxygen iyadoo sidoo kale oxygen-ta ku gubataa maxaa soo baxaya markaa sida aan ku naqaan carbon dioxide iyo water waatana iyadana butane waa C4H8 weelkaas C4 halkan waa H8 hataan soo qaadanay iyada maxaa lagu helaa
CnH2n marka laba lagu dhufanaya kan halkan waa khalad weeye marka C4H8 weeye halkaas marka oxygen la falgasho maxaa soo baxay carbon dioxide iyo water ayay noqonaysaa marka waxaan kaga baxaynaa marka combustionki waxba kusii raagi mayno mar kasta ay gubtaan maxaa soo baxa carbon dioxide iyo water ayaa soo baxaya mar kastoo ay gubtaan carbon dioxide iyo water ayaa soo baxaya waa sida lagu yaqaano alkaniska iyo alkyneska dhammaan hydrocarbonska oo dhan halkan waxaan ka bilaabi doonaa marka isomers of alkenes sida alkanekii aan ku soo marnay iyaguna waxay leeyihiin maxay waxay leeyihiin isomers ay leeyihiin oo molecule kasta moleculeada waxay leeyihiin isomero ama moleculo isku carbon ka kooban ama isku number of atoms ka kooban haddana structure ku kala duwan maxaa sidaan kusoo marnaba dee isomer maxaa lagu qeexaya isomers are molecules with the same molecular formula but different structure waa sidaan ku naqaanay waa moleculo isaga mid ka ah molecular formulaha laakiin ku kala duwan structure-ka qaab dhismeedka ama structure-ka say u samaysan yihiin ama sida atomisku isku haystaan ay ku kala duwan yihiin laakiin tirada atomiska waa isaga mid oo molecular formula muxuu sheegaa inta atomo shayga ku jira marka molecular formula waa same laakiin waxa kala duwan structure-ka molecular marka dabeecadda leh oo isaga mid ka ah molecular formulaha laakiin ku kala duwan structure-ka waxa loo yaqaanaa isomers baa la yihahdaa good isomerska marka alkaneska waxaan kusoo aragnay iyagu structural kaliya oo ahaa waxaa la eegaya branjiga meesha uu haysto laakiin kuwa kan labada wuu noqon karaa the isomers of alkenes could be waxa uu noqon karaa both labadaba structural iyo wuxuu noqon karaa positional mid structure-ka xagga ah oo branches leh wuu noqon karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa positional oo waxa weeye double bondka isagana waa la eegayaa ma xagee uu yaala double bondka positional marka la waa position of the double bond waa tan marka the structural isomerism marka isomerismka structure-ka isaga ku khuseeya isagu involves waxa la yiri wuxuu ku saabsan yahay branch geniska xagee bay haystaan branch geniska waxa soo qaadanay waa kuwa branchiga leh stem iyo waxay leeyihiin branch the positional isomerism isaguna midka positionka khuseeya involves isaguna wuxuu khuseeyaa the position of the functional group halka uu taagan yahay functional group which is double bond for the alkenes yaa iyaga functional group u ah alkenka double bondka iyaga functional group u ah marka iyaga maxaa la eegayaa position of the functional group oo ah double bondka functional group waxa la yiraahdaa waa tan hore u soo qaadanay waa meesha laga soocayo homologous series-ka kale iyaga marka kuwan waxaa lagu yaqaanaa double bond marka functional groupku positionka uu joogo ayaa isagana la eegayaa ka waxa loo yaqaan marka positional isomerism waxa dhici kara laba molecule oo isku carbon ka kooban laakiin double bond ka meesha ku jiro ay ku kala duwan yihiin marka sidoo kale structure buu noqon karaa oo branch genus ayuu noqon karaa positional buu noqon karaa oo double bond ka booskiisa isbedeli karaa marka isomeriska alkenesku kaliya maaha structural sidaan kusoo aragnay alkeneka waa iyagu double bond ma laha laakiin kuwan waxay leeyihiin structural isomerism iyo positional isomerism labadaba waa leeyihiin structural isomerismka muxuu khuseeyaa branch geniska kuwa branchiga leh ama dhinaca kalsha ama side genes loo yaqaano ama substituent dheh waxaa doonta ugu yar branch geniska ayuu khuseeyaa structural ilaa genku markuu branch noqdo iyo markuu straight yahay uusan branch lahayn isku structure maaha marka iyagu structural baa la yihahdaa positional isomerismkana muxuu khuseeyaa waa positionka ama booska meesha uu ku jiro functional groupka oo hadda maxaa inoo ah functional group double bond baa inoo ah alkenes markay ka hadlayno functional group muxuu yahay waa double bond marka double bondku meesha ku jiro isagana waa in la eegaa labadee carbon buu double bond ka dhexeeya marka carbonka labaad iyo kan saddexaad ba markan koowaad iyo kan labaad ba isagana waa la eegaya marka halka waxaa ka cad isomerismka markaad ka hadlaysid alkeneska waa in labadaba la fiiriyaa structural waa noqdaa positionalna waa noqdaa oo labadaba maxay qayb bay ka noqon karaan inay baaki garowaan haddii la aadmo good EGV the isomers of butane are shown below halkan maxaa lagu tusayaa
butane bahasha la yiraahdo saddexda hore ethene waxa la labada hore ethene iyo propene iyo waxay leeyihiin hal isomer ma yeeshaan wax ka badan hal oo isomer gaar ah laakiin butane ayaan eegaynaa isomer iska ilaaha waa kuwa kan saddex isomer ayay leedahay but 1 in but 2 in iyo 2 methyl prop 1 in tan afarti carbon way isku xiriirsan yihiin oo baranji ma leh laakiin double bond muxuu haystaa carbonka koowaad iyo carbonka labaad hadduu double bond ka dhaxeeyo carbonka koowaad iyo carbonka labaad maxaa la tilmaamaa kan koowaad baa sheegaysa mar kasta double bondka labada carbon uu ka dhaxeeyo kan numberka yar baa la qaadaa marka 1 in baa 2 in la oran maayo labada kan yar 1 iyo 2 buu ka dhaxeeyaa 1 ka la tilmaamaya oo la magacaabaya marka maxaa la yahay but 1 in 1 in macnaheed yani carbonka koowaad buu haystaa way dabcan de marka la leeyahay carbonka koowaad buu haystaa de carbonka labaadna waa haystaa oo double bondka laba carbon buu ka dhaxeeyaa laakiin kan numberka yar baa la sheegaya markaad sheegayso maxaad oranaysaa but 1 in la dhihi maayo but 1 2 in no labada kan mid baa qaadanaysaa mid baa la tilmaamaya kan la tilmaamayana waa carbon koowaad mar haddaad tiraahdo carbon koowaad wada dee automatically waa iska garanaysaa inuu carbonka labaad iyo kan koowaad uu ka dhaxeeyo sidaa darteed labada carbon uu ka dhaxeeyo waxaa la tilmaamayaa oo la magacaabaya ama lambarkiisa la sheegayaa kan lambarka yar oo 1 iyo 2 1 ka qaadanaysa marka but waa stemkii waa 1 iyo 2 3 4 afar carbon way silsiladu 1 ku muxuu sheegayaa carbon koowaad buu haystaa in kuna muxuu sheegayaa waa double bond meesha ku jira marka but 1 in waa silsilada koowaad afar carbon oo isku xiriirsan double bond kuna uu haysto carbonka koowaad iyo carbonka labaad uu ka dhaxeeyo sida daraaddeed waxaan qaadanaynaa lambarka yar marka but 1 in waa isomerka koowaad kawan double bond haddii la dhaqaajiyo oo la geeyo halkaa haddana muxuu ka dhaxeeyaa carbonka koowaad iyo carbonka labaad haddaan dhaqaajino oo geyno kan labaad iyo kan saddexaad waa kana awal halakana oo double bond waa soo kaxaynay silsiladu waa sideedii afarteedii carbon way kii hore la mid tahay laakiin maxaa la sameeyey double bond meesha awal halakan oo ah kan koowaad iyo kan labaad maxaa la geeyey kan labaad iyo kan saddexaad baa la geeyey marka maxay noqonaysaa silsiladu waliba biyuudki weeye waa biyuud oo isma bedelin waa afartii carbon wey weli marka stemku weli wuxuu noqonayaa biyuud maxaan leenahay goorta 2 muxuu sheegayaa carbonka labaad inkuna muxuu sheegayaa double bond baa meesha ku jira oo double bondku muxuu haystaa carbonka labaad dabcan waa sidoo kale xagga haddaan ka tiriyo kow waa kan 2 iyo 3 double bondku ka dhaxeeya kan labaad iyo kan saddexaad haddaan xagga ka tiriyo 2 kana noqonaya kana 3 buu noqonaya markasta wuxuu noqonayaa double bondku muxuu ka dhaxeeyaa carbonka labaad iyo carbonka saddexaad buu ka dhaxeeyaa hadduu carbonka labaad iyo carbonka saddexaad uu ka dhaxeeyo double bondku maxaa la qaadanayaa lambarka yar mar walba oo la dhihi maayo carbon bio 2 3 in labada baa sheegaysaa labada loo sheegi maayo kee sheegaysaa midka lambarka yar oo 2 iyo 3 hadduu ka dhaxeeyay waxaan qaadanaynaa kan labaad oo 2 ga marka muxuu noqonayaa bio 2 in bio 2 in bio maxay ii sheegaysaa silsiladu waa afar carbon 2 gaas muxuu ii sheegayaa carbonka labaad buu haystaa double bond in kuna muxuu ii sheegayaa double bond baa ku jira silsiladu waa alkene intaas waa alkene wey marka bio 2 in macnaheedu waa maxay carbonka labaad wuxuu haystaa double bondka wuxuu haystaa carbonka labaad dabcan marka yiraahdo carbonka labaad buu haystaa waa la iska garanayaa carbonka labaad iyo kan saddexaad buu ka dhaxayaa way double bondku waayo markasta double bondku laba carbon buu ka dhaxayaa marka labada uu ka dhaxeeyo maxaad qaadanaysaa kan yar lambarka yar haddaa xagga ka tiriso 1 kana 2 noqonaya kana 3 buu noqonaya xagga haddaan ka soo tiriyo midigtana 1 kana 2 noqonaya kana 3 buu noqonaya markaas 2 iyo 3 buu ka dhaxeeyaa maadaama marka 2 iyo 3 uu ka dhaxeeyo maxaan qaadanaynaa lambarka yar marka muxuu noqonayaa biyut waa stemkii waa 1 2 3 4 waa biyut 2 muxuu ii sheegayaa carbonka labaad buu haystaa inkuna muxuu ii sheegayaa double bondkii baa meesha ku jira waa alkene marka biyut 2 in ayaan leenahay waa isomerka labaad labada maxay ku kala duwan yihiin marka kan iyo kan silsilada waa caadiga waa toos afartii carbon isku xiriirsan yihiin kana waa isku xiriirsan yihiin baranji ma laha labadaba kan wax baranji ma laha afartii carbon waa straight chain kana waa straight chain labada silsiladood laakiin maxay ku kala duwan yihiin positionka double bondka oo positional buu noqonayaa isomerismkoodu kana carbon double bondku wuxuu ka dhaxeeyaa carbonka koowaad iyo kan labaad kana wuxuu ka dhaxeeyaa carbonka labaad
iyo kan saddexaad ayuu ka dhaxayaa 2 iyo 3 difference waa inta marka but 1 in iyo but 2 in inta kale waa isaga mid lambarkaasi ku kala duwan yihiin 1 in iyo kan wuxuu yahay 2 in 1 in wuxuu sheegayaa double bondku wuxuu haystaa kaarboonka koowaad iyo kan labaad oo la qaadanayo kan koowaad baa la tilmaamaya 2 in wuxuu sheegayaa double bondku wuxuu haystaa kaarboonka labaad iyo kan saddexaad oo maxaa la tilmaamayaa kan labaad but 2 in labadaas marka waxay ku kala duwan yihiin oo kaliya positionka double bond kan saddexaad isagu waa branch u yeesho isagu la mid ma aha labadii hore waxay ku kala duwan yihiin oo kaliya positionka double bond laakiin hadda waxa dhacday kan oo kale ayaa waxa la soo qaaday kaarboonka geeska kana lagu dhajiyay oo branch baa ka laga dhigay haddaan ka branch ka dhigo maxaa ii soo haraya 1 iyo 2 iyo 3 kaarboonka systemki noqonaya 1 2 3 maxaa la soo qaaday ka geeska haddii la soo qaado waxa lagu dhajiyay kan labaad waa taan soo sheegnay ka haddaan branch ka dhigo oo ku xiga ku dhajiyo magac isbedeli maayo branch noqon maayo laakiin ka haddaa qaado waa inaad kan ka boodaa ilaa kana awal 1 ahaa kan haddaan branch ka dhigay kana 1 noqonay kaarboon koowaad laguma dhajiyo branchiga haddaa branchiga kaarboon koowaad ku dhiso magaci but 2 inkiisu waa but 1 in buu ahaanaya isbedeli maayo ma noqonayo isomer kale marka ka haddii la qaado kan waa laga boodayaa kana lagu dhajinayaa Soomaaliya halka kana maxaa lagu dhajiyay marka saddex muxuu ahaa hal kaarboon iyo 3 hydrogen waa ka methyl ayaa la yiraahdaa kana hydrogentii uu ku dhaganay maadaama isaga lagu dhajiyay maayta halkan maadaama hydrogentii isaga ku dhaganay hydrogentii kana bedelaysaa booskan galita maadaama kan meesha ka baxay halkan ay soo waa kan hydrogentii halkan lagu soo daray kaarboon kale ku dhaganaana waxa lagu dhajiyay kan labaad hydrogentii halkan ku dhaganayd oo isagu haystay waa tana hydrogentan xagga la geeyay waxa lagu dhajiyay kaarboonkii geeska soo xigay waa kana marka branchigi waa kan muxuu yahay branchigu waa hal kaarboon iyo 3 hydrogen magacii methyl baa la haddaa aragto kaarboon iyo 3 hydrogen wada socda magacaas loogu yeero methyl horaan u soo marnay oo methane ayuu ka yimi oo hal hydrogen ka maqan tahay oo methane waxay ahaan jirtay CH4 hal kaarboon iyo 4 hydrogen laakiin kana muxuu yahay waa hal kaarboon iyo 3 hydrogen ayaa ku dhagan marka iyagoo inta badan branchiga noqdo marka methyl good stemki marka muxuu noqday awal stemka awal but buu ahaa 4 kaarboon bay ahay haddii mid branchi laga dhigay muxuu noqonayaa 3 buu noqonayaa marka 1 iyo 2 iyo 3 double bondka ayuu ka dhaxayaa kaarboonka koowaad iyo kan labaad xagga haddaa ka tiriso 1 2 iyo 3 buu noqonayaa waa ron dhanka dhow waa laga tirinayaa marka 1 iyo 2 ayaa la qaadanayaa lama dhahayo 1 2 iyo 3 buu ka dhaxayaa double bondka la dhimayo xagga waxa laga tirinayaa midigta dhanka uga dhow yahay 1 iyo 2 marka 1 in musaa ku noqonayaa isbedeli maayo 1 inkii laakiin maxaa isbedelaya stemkii meeshuu ka ahaa but muxuu noqonayaa prob ayuu noqonayaa marka kaarboonkee uu haystaa branchigu horta yuu yahay waa methyl waa kana waa hal kaarboon iyo 3 hydrogen kaarboonkee uu ku dhagan yahay kaarboonka labaad marka 2 baa marka 2 methyl macnaheed yani 2gaas wuxuu sheegayaa branchigu wuxuu haystaa kaarboonka labaad methylkuna waa branchigii marka 2 methyl marka ilaad macnaheed yani methyl baa muxuu haystaa kaarboonka labaad way silsilada la haystana waa silsiladee waa 1 2 iyo 3 waa prob waa 3 silsilada la haystaa 3 kaarboon bay koonta stemki way prob marka 2 marka ilaad waxaan sheegay kaarboonka la haystay methyl marka ilaad maxaan sheegay branchiga haystay prob marka ilaad maxaan sheegay waxaan sheegtay stemki ama silsiladii la haystay prob okay maxaa iyada marka hadda waxaan magacaabay waxaan sheegay locantigi kaarboonki la haystay waxaan sheegay branchigi waxaan sheegay stemki maxaa dhiman double bondki meeshuu haystay oo iyuu ka dhaxaya double bondka kaarboonkood iyo kan labaad maxaan tilmaamaynaa kaarboonkood 1 waxaan raacinaya marka family name ko inuu ugu dambeeyaa in ayay noqoto marka magaciisu muxuu noqonayaa kan 2 methyl prob 1 in prob 1 in oo maxaa haysta methyl baa haysta xagee buu ka haystaa kaarboonka labaad okay tirada kaarboonka marka kana 4 buu ahaa kana 4 buu ahaa kana waa 4 oo saddexda iyo xabadan isku dar waa 4 way kaliya maxaa isbedelay structure-kii oo kani branchi ma lahayn estrogen buu ahaa double bondkana wuxuu ka dhaxay kaarboonka koowaad iyo kaarboonka labaad
كان سلو كلا أفرت كربون استريجين بوها لكن دول بنكون كلا هي كربون كلا وادي كربون كسدحات وفرق كان يكانوا دحرية كان لكن لو هذا وحو كجد هاي وكان وحو الأول أجا دول بنكون كلا هي كربون كوادي كربون كلا وادي لكن لو هذا وحو كجد ويا برنجي بلي oo afartii carbon mid ka mid ah ayaa branch noqday waa kana hal carbon iyo saddex hydrogen halkaan marka carbon-kii uu ka haystaa marka carbon-ka labaad stem-kuna marka meeshu ka ah bute labada tan stem-ku isbedelaya waayo mid branch noqday marka wuxuu noqonayaa branch stem-ki prop ayuu noqonayaa marka halkaan marka maxaa ku jira waa ina magacawnaa branch-ga meesha uu haysto iyo double bond-ka labada waa in laga helaa marka magaci wuxuu noqday 2 methyl prop 1 in 2 methyl 2 gaas wuxuu sheegayaa carbon-ka labaad la haystaa methyl wuxuu sheegayaa branch-ga inuu yahay CH3 prop kuwa maxay wuxuu sheegayaa stem-ku waa saddex carbon ah 1 kaas wuxuu sheegayaa double bond-ka inuu haysto carbon-ka koowaad dabcan wuxuu ka dhaxayaa carbon-ka koowaad iyo carbon-ka labaad laakiin maxaa la qaadanayaa carbon 1 in-kuna muxuu sheegayaa inuu yahay alkene ama family name marka 2 methyl prop 1 in saddexda marka structure saddexda waa waxay ka mid yihiin butene afar carbon bay ka kooban yihiin sida daraadeed waxay isaga mid ka yihiin molecular formulaha laakiin waxay ku kala duwanaan doonaan maxay structure-ki labadana aad isugu dhow iyagana muxuu yahay farqigoodu kan double bond-ku wuxuu ka dhaxayaa carbon koowaad iyo carbon-ka labaad laakiin hadda ka soo tiriyo 1 2 3 iyo 4 ku noqon waa wrong dhanka dhow marka laga tirnaa xagga laga tirnaa 1 iyo 2 in waay kana iyo ka dhaxaya xagga ka soo tiriyo waa 1 2 kana 3 ku noqon 3 iyo 2 xagga dan ka tiriyo 1 2 kana wuxuu noqon 3 waa isla meesha marka kan meeshu ka dhaxaya double bond carbon koowaad iyo carbon-ka labaad kan wuxuu ka dhaxaya carbon-ka labaad iyo carbon-ka saddexaad sida daadeed labadatan marna kan wuxuu noqonayaa bute 1 in kana wuxuu noqonayaa bute 2 in good kana waa ka duwan yahay oo isagu afartii mid baa branch laga dhigay afartii carbon saddex baa isku xigaysan saddexda isku xigaysan marka maxay noqonayaa stem-ki prop ayuu noqonayaa maadaama stem-ki silsiladda marka la haysta ay noqotay saddex carbon prop ayaan leenahay branch-guna waa maxay waa methyl waa CH3 gaas waa hal carbon iyo saddex hydrogen methyl baa yaalaa carbon-ka uu haystana waa carbon-ka xagga haddaan ka tiriyo waa 1 2 xagga haddaan ka tiriyo 1 2 markasta carbon-ka labaad buu noqonayaa waa 2 methyl prop intaas maxaan sheegay lokantigii ama carbon-kii la haystay branch-gii oo methyl ah stem-kii la haystay oo prop ah maxaa ii soo haray markaa inaan tilmaamo double bond-kii 1 in oo double bond-ku muxuu haystaa carbon-ka koowaad iyo carbon-ka labaad marka maxaan qaadanayaa lambarka yar 1 in ba marka ugu dambeeya marka halkaa maxaa ka aragtaa 5 shay ma ka haysaa halkaa magaca waxaa ka haysaa marka u horeysa carbon-kii la haystay lokantigii waxaad haysaa labo branch-gii haystay waxaad haysaa stem-kii la haystay oo prop ah waxaad haysaa position-kii uu haysto double bond-kii oo 1 ah waxaad haysataa family name-kii oo ah in oo waxay sheegaysaa double bond meesha ku jiro laakiin kuwa kan magacooda maxaa laga helaa saddex shay kaliya iyo branch ma laha waa stem-kii oo bute ah position-ka double bond-ka oo 1 ah iyo in oo ah family name-kii kana waa la mid bute waa stem-kii 2 waa position-ka double bond-ka in-kan waa saddex baa ka kooban yihiin saddex shay laakiin kan 5 buu dheeryahay waayo branch waa soo galay oo maxaa ku soo biiraya labadani dheer yihiin iyo waxay leeyihiin branch-ga carbon-ka oo haysto branch-gii stem-kii position-ka double bond-ka iyo family name-kii waayo there are marka sidaan kusoo eegno kan 3 possible isomers of butane saddex isomer oo macquul ah possible ah iska qorqormaa waa inay wax saxay there are waxaa jira 3 possible isomers saddex isomer oo macquul ah oo butane ay leedahay as shown above sida kor aan kusoo eegnay hadda saddexdu sheegaya oo kala ahaa bute 1 in bute 2 in iyo 2 methyl prop 1 in marka saddexdaas ayuu leeyahay oo maxaa tii kale maxay bute 1 in has waxay leedahay double bond bay leedahay yuu dhaxaya laakiin between carbon 1 iyo carbon 2 waa sababta carbon 1 ka loo qaadanayo ilaa wuxuu ka dhaxaya carbon 1 iyo carbon 2 marka lambarka yar baa la qaadanaya carbon 1 kala tunaayo 1 baa la qaadanaya marka carbon 1 iyo carbon 2 ka dhaxaya so
we take maxaan qaadanayna the lowest number oo ah carbon 1ka labada lambar carbon 1 iyo carbon 2 maxaa la qaadanaya lowest number oo ah carbon 1 oo sababta loo leeyahay marka 1 in 2 in lama dhahayo labada lambar uu ka dhaxeeyo labada carbon uu ka dhaxeeyo midka lambarka yar ayaa lagu magacaabaya kan labaadna maxaa weeye butane 2 in isagana has double bond isagana double bond buu leeyahay oo between u dhaxeeya carbon 2 iyo carbon 3 carbon ka labaad iyo kan saddexaad buu ka dhaxeeya so we take the lowest number markasta maxaan qaadanaynaa lambarka yar oo lowest numberka oo ah carbon 2 oo sababta loo leeyahay marka butane 2 in oo carbon 3 iyo carbon 2 buu ka dhaxeeya laakiin maxaa la qaadanayaa lambarka yar butane 2 in marka la yiraahdo automatically maxaa ku soo dhacaya double bond wuxuu ka dhaxeeya 2 iyo 3 1 in hadii la yiraahdo maxaa ku soo dhacayo double bond wuxuu ka dhaxeeya 1 iyo 2 why kan saddexaadna muxuu ahaa 2 methyl propane 1 in isagana 2 methyl propane waa kii saddexaad aan soo aragnay the branch is methyl branch muxuu yahay waa methyl way which is attached on xaga ku dhagan yahay carbon 2 la yaa ii sheegaya 2 gaas ii sheegaya carbon 2 buu ku dhagan yahay marka wuxuu ku yiri branchigu waa methyl oo cagaar buu ku qoran yahay waa ka methyl wuxuuna is attached on wuxuuna ku dhagan yahay carbon 2 waa sababta loo leeyahay marka 2 methyl marka jiraan maxaa sheegtay branchigu waa methyl carbonka uu haysan waa carbon 2 marka is attached on here carbon 2 and there is waxaa jira sidoo kale double bond وكاس محو شيء برنجس كي يسوي مكان structural isomerism بو كديجاي كان محو شيء position كي and there is واحد جرا double bond أو يودا حيا between carbon 1 iyo carbon 2 أيو كده حيا so we take the lowest number سيدي وكلام حق عينا number كير أو محو نقضي 1 in بالأورنا يا سكر مركز تك لودا carbon وكده حيا number كير بقى عينا سامك عيد مكسب محو نقضي 2 methyl propane they have same molecular formula waxay leeyihiin molecular formula isku mid ah oo muxuu yahay C4H10 but they have different structure laakiin maxay ku kala duwan yihiin structure-ka ay ku kala duwan yihiin dhammaantood maxay ka koobnaayeen 4 carbon iyo 8 hydrogen wax yar halka ku noqon silsiladii imise carbon ba ku jira waa 1 2 3 4 waa 4 carbon hydrogenada ii tiri halka 3 buu haystaa kaasi kana 2 buu haystaa igu dar halka oo 5 كان حبض بو هيستا ومحي حبض محو هيستا كان صوت محاوي واي هذا كان دول بوم بو هيستا لو الكترون بو شير جري كان سنجل بوم كربون كان لا هيستا يا حبض بو شير جري مكا حاجه هدول لو شير جري هذا كان وحبه شير جري محاو هذا هل الكترون مكا محو قصنا هلا هيدروجين مكا صدخدا لبدا يقدر وشان حبضا يقدر ولح لبدا يقدر وسيديد مكا واي مسوا افر كربون يا سيديد هيدروجين ايو كوي كان أوتري وأنت كربون هو لو صدق يا أفر وأفر كربون يسوي هيدروجين ده يترك كان صدق هو يستا كحبة يقدر أفر حبة يقدر وشان صدق لا قدر مك كان يستو وما هي وسيدين مك وأفر كربون يسيدين هيدروجين C4H8 يسوي كان أوتري كربون ده وكو لو صدق يا كان وبرنجيا وأفر كربون هيدروجين ده أوتري كان لو يستا كان حبب بويستا وصدح كان حبب waxaan leeyahay kan labo haystaa isaguna kan saddex buu haystaa kan saddex buu haystaa ka labada igu dar oo haysto waa 5 kan saddex buu haystaa ugu dar waa 8 marka waa 4 carbon iyo 8 hydrogen isaguna wuxuu noqonayaa C4H8 halka maxaa ka cad afar saddexdu waxay leeyihiin same molecular formula oo ah C4H8 laakiin maxay ku kala duwan yihiin structure-kii ayay maxay ku kala duwan yihiin why to find makawiri saa u hesho the number of possible isomers saa u hesho tirada possible isomers of a molecule ka uu leeyahay wuxuu doonaha noqdo molecule ku doonaha noqdo adaartina ogaatid inta possible isomer uu leeyahay formulaha isticmaal waa 2 power n minus 3 plus 1 kuwi alkeenkii hore waxay ku soo qaadanay in lagu helayo 2 power n minus 4 plus 1 kan laakiin maxaa lagu helayaa 2 power n minus 3 plus 1 hadaan teena tan ku ablagelino butane bay ahayd but waa 4 ku bedelo marka nt waa 2 power 4 minus 3 plus 1
4 minus 3 محو نقايا و 2 باور 1 plus 1 مكا 2 باور 1 محو لمدية 2 باور 1 محو لمدية هي و 2 دا عادي سيدا دادي 2 plus 1 و 3 مكا صدح ايسومير ايو لها وانتي هادا كوزو مرني ومحيك العاين بيوت 1 in بيوت 2 in بيوت 3 in أهلا بيوت 1 in بيوت 2 in يو 2 methyl prop 1 in why this means butene has 3 possible isomers تصور صدح اسم هاي شيء يسا وحيلها صدح possible isomer أي يرانيسا كاسو example كود وها example 2 أدينا يجنو the possible isomers of benzene are shown below يعني benzene مكليا benzene ما محي وشانوي bent كوبا دول مكا 2 باور 5 minus 3 plus 1 2 باور مكا 5 minus 3 مكا محي نقايا شان وحكا جدا صدح و 2 باور 2 plus 1 2 باور 2 مكا محلو مديهي و 4 4 plus 1 5 معناه يدوا محي لا ضحي this means بوكري benzene بهاش اللي هذا has وحي لا ضحي 5 possible isomers given below يدنا هاكا لو قلت صايا شانتي isomer واكوكا شن isomer بيلها أما شن استركجر أي نقول كذا يدو عن كربون كشن تكربوني كربونه وين ما كذا شن تودي حاجة شن كربون كمان بلنا كمان يران كذا لكن وحي كوكا دوين استركجر كي كان يواكل good هاي نقول يسمى كاني وهذا يلمك عيسى pent 1 in pent كتيبة كم كان pent 1 in pent 1 in pent 1 in هاي نقول يسايد واسس pent هي شيء يسوى شن 1 كاسم هي شيء يا كربون كوال يا كربون كلا بكرة حياة دول بون محل قاعة كربون 1 بلقاء حاجة دان كتيريو وكو لابو صدق أفر أيو نقايا أفر يشم بكرة حياة مكا أفر بلقاء لها مكا وخرج سيدا درادة لمبركا لقي كله ذي هدول بونك أيها لقيتنا مكا حاجة كتيرينا كو لو مكا يو كده حياة كان لبا كان كوالي كان لبا بكرة حياة مكا محل قاعة يا لمبركا ير مكا مكا يمحون نقايا pent 1 in pent وشان كربون وكو لابو صدق أفر يشان مكا pent وي 1 كاسن محون يشيء كربون كوالي كربون كان لبا بكرة حياة وي in كنا محون يشيء والكين ودول بمبا كتير مكا pent 1 in سو كرتون حسكت يكدا 1 كوكتي كدا pentene بس كده كدا ولسكي يقانا مكا سكربون كوالي نهايستو هذا مكا pent 1 in أتراهو يهدا تراهو benzene كلي اسكت تراهو يهدا 1 كسوها ما يسوي تراهو 1 benzene يلا واضح صدق سيد بوشي كدا وهذه كده pent 1 in هذا إناقرن وهذه كده pentene أو 1 كواسكتي كدا وهذه كده سو كده 1 كساهوري جين كدا وهذا يسوي 1 benzene إنت وأخرى كده كان لوات في يسوونه كانوا كلهم يجوا شنتي كربون وكوا كان كو لابو صدق أفر شن وشن كربون لكن دول بون كبيش أول كهيست كربون كوادي كربون كلوات محو كده حيا ما كان حاجة كتير كو لابو يصدق حاجة تانية كتير كو لابو صدق يا أفر بنوعية ما كواحد كده حاجة كده وكو لابو يصدق بكده حيا ما كتو يتري بكده حيا أول لما محو كده حيا 1 يا 2 ما كهذا وش بدي يسمى كشيء هادو 2 iyo 3 ka dhaxeeyo maxay qaadanaynaa marka lambarka yar bay qaadanaynaa muxuu noqonayaa pent 2 in pent waa wax baranjiya ma laha marka system marka waa pent way hadaan wax baranjiya uusan jirin oo carbon toos u xiriirsan yihiin marka pent way 2 gaas muxuu sheegay carbonka labaad buu haystaa in kuna muxuu sheegayaa double bond meesha ku jira way sida daradeed pent 2 in kana muxuu ahaa pent 1 in 1 in carbonka koowaad buu haystaa way 2 in كربون كلوات هو يستوي مركز اللي كربون كواب هو يسدور بونكو معناه 1 iyo 2 كده حياوي بس كنا يسا واي دور بونك مركز اللي هو كربون كده حيا مركز لكن حالة قاعة يا لمبر كير أو 1 كا مركز لنا 2 in كلوات هو يستوي دور بونكو لكن معناه ما هو 2 iyo 3 كده حيا لكن حالة قاعة يا لمبر كير أو بنت 2 in واجد لو أصبح هي واحد برنجي مراحين يوم هي توس لكن كوا كان صوفي كان أفرتي أيا وها لقى برانش كان توجا أها هل كان سو 2 in ما هي سو 2 in كيسا أيا كهذا سوق على كربون كاس يصير هيدروجين بوه يسمى كاس على سوق على محل كودي وهل كودي كربون كان كودي وكنا كربون كوا كنا ما كسي أجتري
جيس كلا جسوا قاعدة حاجة لكن maxaa ii soo haray marka xabad ka dheer 1 2 3 4 kaarboon baa soo haray xabad baa 5 noqotay ha khaldin hadda halka shanteedu u deyso midna branch 6 bay noqonayaan waa khald 5 kaarboon inay ka bataan lama rabo waayo bentidoodii baash bentidaas waa inay ku koobnaataa waa inay markaas shantoodii ahaataa laakiin shantii marka xabad ka dhigto branch magaca biyut buu isu bedelaya stemki waa isbedelaya laakiin kaarboon isu bedeli maayaan kaarboon waa shantoodii laakiin magaca meesha awal benti aad ka lahayd markasta magaca stemka maxaa qaanaya inta isku xiriirsan oo tooska ah magaca oo stemka loo yaqaan marka hadda afar kaarboon baa isku xiriirsan iyaga marka iyaga loo yaqaan stemka iyaga noqonaya biyut bay noqonayaan xabada marka branch noqotay xagee haysta marka xaga hadaan ka tiriyo 1 2 kaarboonka labaad buu haystaa xaga hadaan ka tiriyo 1 2 iyo 3 buu noqonaya marka maxaa la qaanaya markasta dhanka dhow 1 2 labadaas la qaanaya branchigu waa methyl waa CH3 muxuu haystaa kaarboonka labaad marka maxaan dhahayaa 2 methyl ayaan dhahayaa marka 2ga muxuu ii sheegay kaarboonka labaad methylkuna waa branchigi 2 methyl stemka la haysta maxaa weeye 1 2 3 4 waa biyut baan dhahayaa waayo 5 bay ahayd markeeda hore xabad baa branchi noqotay hadday xabad ay branchi noqotay ama hal xabo uu branchi noqday macnaheedu waa maxay stemki biyut buu noqonayaa marka biyut okay 2 in macnaheedu waa maxay dhowr bonku wuxuu haystaa kaarboonka labaad 1 2 iyo 3 buu ka dhaxeeya 2ga la tilmaamaya marka maxay noqonaysaa 2 methyl biyut 2 in waa silsilad afar kaarboon ka kooban oo stemkiya midkii shanaadna uu yahay branchi oo kaarboonka labaad uu haysto marka 2 methyl waxay ii sheegaysaa kaarboonka la haysto waa la kaarboon 2 branchi waa yahay methyl stemkuna muxuu yahay waa silsilada afarta kaarboona waa biyut bay noqonaysaa dhowr bonkuna xagee uu haystaa kaarboonka labaad iyo ka saddexaad 2 baan qaadanaya inkaasuna waa family name ka gadaal markasta maraya marka magaci muxuu noqday 2 methyl biyut 2 in 2 methyl biyut oo kii saddexaad kan afraad waa kan isaga meeshu kan ka ahaa 2 in kii ahaa awal kana branchi loo sameeyay 2 in ka ahaa waa kan haddana kana branchi laga dhigay isagoo 1 in kiisa oo dhowr bonk meeshiisa yaala ayaa kaa la qaaday geeska waxa lagu dhajiyay kaarboonka labaad baa lagu dhajiyay isaga oo muxuu noqday magaciisii afar baa ii soo haraya dhowr boonkuna muxuu ka dhaxeeyaa kaarboonka koowaad iyo kaarboonka labaad marka magacii muxuu noqonayaa 2 methyl biyut 1 in maxay ku kala duwan yihiin labadatan 2 inkaas iyo 1 inka oo dhowr boonk kaliya ku duwan yihiin laakiin branchiga waa isaga mid oo methyl iyo methyl meeshuu haysto waa isaga mid waa kaarboon 2 iyo kaarboon 2 laakiin maxay ku kala duwan yihiin dhowr boonka meeshuu haysto kuwa kan waa 2 buu haystaa waa 2 in kuwa kan 1 buu haystaa waa 1 in marka magacii muxuu noqday 2 methyl biyut 1 in labada marka isku mid maaha waxay isaga mid ka yihiin branchiga waa isaga mid meeshuu haystana waa isaga mid waa kaarboonka labaad laakiin maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin dhowr boonka meeshuu ku dhegan yahay kan wuxuu u dhaxeeyaa kaarboon 2 iyo kaarboon 3 marka 2 baa la qaatay 2 in kanna wuxuu ka dhaxeeyaa kaarboon 1 iyo kaarboon 2 marka maxaa la qaatay kan yar waa 1 in marka magacii inta kale waa isaga mid halkaa un bay ku kala duwan yihiin waa 2 methyl biyut 2 in kana 2 methyl biyut 1 in kan shanaad fiiri isagu meeshaan kuwa kan meesha kan meeshu ka ah 2 methyl waa la dhaqaajiyay branchigii xagga la geeyay marka branchi maxaa u dhigay kan saddexaad xagga haddaan ka tiriyo 1 2 haystaa branchigu methyl iyo kaarboonka labaad buu haystaa laakiin xagga haddaan ka tiriyo 1 2 3 buu noqonayo maxaa marka xagga dhow looga tirin waayo meesha hadduu ku jiro functional group dhowr bon ama OH dhanka markasta waxaa ka tirinaysaa dhanka OH-ka uu ka dhow yahay xagga marka maxaa ka dhow OH kaarboonka kood baysa kana laga tirinaya marka 1 2 3 bay noqonaysaa marka 3 methyl buu noqonaya marka methylka waa kan waa CH3 gaas kaarboonka uu haysta marka xagga ka soo tirino waa kaarboonka saddexaad uu haystaa marka muxuu noqonayaa 3 methyl stemku maxaa weeye 1 2 3 4 waa biyut weeye silsilada la haysto oo dheer inta isku xiriirsan waa biyut weeye dhowr boonk muxuu haystaa kaarboonkood waa 1 in kaas muxuu ii sheegayaa waa family namekii oo ah in marka 3 methyl biyut 1 in shantaa marka isomer ayuu yeelan karaa bahasha loo yaqaano bentin oo inay noqoto benta 1 in oo ah silsilad shantii kaarboon isku wada xiriirsan yihiin dhowr boonkuna uu haysta kaarboonka koowaad iyo kaarboonka labaad wax branchiya ma laha shantii waa isku xiriirsan yihiin kaarboonka koowaad iyo kaarboonka labaadna waxay u dhaxay dhowr boonk
الله هي بنت 1E كان سيديو كلا وهي شنتي كربون اسكو خليسين wax baranjiya malaha isaguna shanti carbon buu isku xiriirsan yihiin laakiin wuxuu kan kaga duwan yahay double bond wuxuu dhahayaa 2 iyo 3 marka maxaa qaadaynaa 2 gi markasta ka lambarka yar benta 2in buu noqonayaa kan meeshu ka ahaa benta 1in systemku isaga mid waa benti iyo benti waayo shan carbon oo isku xiriirsan bay leeyihiin wax baranjiya malaha marka systemku waa pent iyo pent maxay ku kala duwan yihiin laakiin positionka double bond 1in iyo 2in kana waa shan afar carbon baa isku xiriirsan mid baa laakiin baranjiya kan baranjiga laakiin muxuu haystaa carbonka labaad xagga aad ka soo tiriyo kow labo xagga aad ka tiriyo kow labo saddex buu noqonayaa marka kow labo ayaa la qaadaya waayo double bondkina waa aqbalayaa 2 gi wuxuu haystaa double bondki isagina wuxuu ku dhagan carbon 2 marka waa caadi oo la dhimaayo xagga double bondku kow labo xagga double bondku waa ka dhow yahay isbee maxaa xagga 3 loo dhiibayo maya لكن واحد أقبله يدور ممكن وأقبله يا برنتي وأقبله يا مكا كنا مكا 2 قاس على الغاية لوادي با 2 ميثايل كنا وحنا نغاية 2 إن ولكن وكربون كلواد دول ممكن يسموه هسا برنتي يسموه دقيقة مكا محل الله يا 2 ميثايل بيوت 2 إن بيوت بين نقطة استمكي كون ماشوا كأها بنت ويقول كشنتي كربون وسكو حريصنايين لكن كان حبتها برنتي كديتون وحي كجر ميسا توصل كي هوري وماشي سيسيردو شنكا أهي أفر بين نغاية هذا لكن شنتي أوديسو وحبط برنتي كسوريكتو شنتها واحد قدر يا حبط برنتي اللي نغيتها وخلاص إن شنكا بتاعنا لما طلع أي سميريس هو إني سكول نمبر أوف كاربون مكا أفرت هذا أفر بأيسو هاي هذا ميت برنتي نقطة كاب برنتي كان وحده هيستا كاربون كلوات بالغوريتي دول بونكنا وحده هيستا كاربون كلوات وحاجة هذا كتير كول لابو كان وحده نقطة يا صدح هذا حاجة كتير أنا كول لابا كان لابا نقطة يا سيدا دادت ما كسر توج دول بنك يسبدل مايو برنتي كمان ما حكى لي أساسا كنا توج كذي وهذه انتري وحاجة كتير وهاي دول بنك لو أنا وأقبل يا هذا حكى كتير أنا كولو نقايا ده حكى كتير أنا كولو ما كسر توج أيوة كدايا ما كميت كبرنتي كا دول بنك إسوافق يعني قالوا وهذه تري ميثايل بيوت 2 إن هارون واحد يسا 2 ميثايل بيوت 2 إن كان لو سجنوا أفر كربون أفرتي كربون با إسكو حيرسن مد با برنجيا كربون كلوا بوهستا لكن دول بون كمان كربون كوا بوهستا ومشو كانوا كأها 2 إن أو 1 إن ما كم حيوك كدوانا يا 1 إن كاس إنت كلوا يسكميت أو برنجي كوا ميثايل كربون كلوا بوهستا حاجة دا كتيريو لا حاجة دو على كتيرنا يا دول بون كدن كدو ياي بهاي نقول يسا 2 ميثايل بيوت 1 إن يسكنا كان ولا دركيي ومشو كأها 2 ميثايل برنج ألا كانوا كده جنا مركي هوري برنجو كربون كسدحات بالكي مركا واقبلا يا ده حكة تريكو لو صدق مكو تري ميثايل بنقاي ده لك حكة تريكو لو ما كان هو بنقاي يا تري إن بخلا مركز البوزيشن كا مركز البرايورتي أما هرتبينتا وحلسينا يا مدنانتا وح إسكال دول بنك حاجة سكتة نسا دنكو كدويا كو حاجة كو بوكو دعيا سكتة نسا كو لو صدق بنقاي كم marka baranjigu waa methyl wuxuu haystaa kaarboonka saddexaad ayuu saddex haystaa marka 3 methyl bute 1 in ayaa oranayna marka shanta isomer mid kale oo ka duwan ma yeelan karo shanta isomer ay yeelanayaan sidii formuluhu inoo sheegay there are 5 possible isomers of benzene waxa jira 5 isomer oo macquul ah oo ay leedahay benzene shown above oo aan kor ku soo aragnay above muxuu ka wadaa dee haddaan soo arag kor baan ku soo aragnay shantii hadda soo arkayna wey below waa la odhan lahaa haddii halkan ku oran lahay laakiin waa soo aragnay they have waxay leeyihiin same molecular formula oo ah maxay wadaagaan molecular formula isku mid shantuba oo maxay leeyihiin C5H10 shan carbona iyo 10 hydrogen but they have different structure laakiin waxay leeyihiin structure kala duwan sax ma tahay marka aan soo hubino mid kasta inuu leeyahay shan carbon iyo 10 hydrogen molecular formula shantii aan ku noqon kan waa imisa carbon kow labo saddex afar shan waa shan carbon hydrogenada iyo tiri kan labo haystaa kana xabad buu haystaa waa saddex kana labo haystaa waa shan kana labo haystaa waa toddoba kana saddex buu haystaa waa 10 marka waa shan carbon iyo 10 hydrogen kaas waa sax kan labaadna imisa carbon way kow labo saddex afar shan hydrogenada iyo tiri
وصدح حبدا كدر آخر حبدا كدر شن لبدا كدر وكان هيستو تدبا صدح لا كدر وكان هيستو وطبعا لكي سيئنا وحنا نقايا C5H10 شن كربون 8 هيدروجين كان أوتري كو لابو صدح أفر بس كويسن حبدا برنجيكا كدر شن كربون هيدروجين ده يتري كانوا صدح بوهيستا كان وحوه ما هيستو إلا هذا كان أفر تلنع ولا هيستا كان واحد هيدروجين ما هيستو كارما كصدح بوهيستا وريا كان كبود كان حبد بوهيستا وأفر كان صدح داس بوهيستا وقدر وتدبا كان صدح بوهيستا برنجيكا وطبعا مكوا شن كربونا إيو طبعا هيدروجين C4 وعلى C5H10 كان أوتري سجنا كربونات وكو الله وصدح أفر يشان أفر تايس كحريسن هي حبدا برندقة وشان كربون waxa u tirisa marka hydrogenada kan geeska laba hydrogen haysta kan waxa ma haysto ka xabo kana laba haysta waa afar kana saddex buu haysta waa toddoba kana saddex buu haysta baranjiga ah waa 10 isagana muxuu noqonayaa C5H10 shan carbon iyo 10 hydrogen kana u tiri isagana carbonada waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 carbon xabadan baranjiga ku dar shan hydrogenada marka u tiri waa 2 حبات كان هيستو أفر أنا ليه صدح حبات كان كودر وأفر كان صدح هو يستا أقدر تدوا كان صدح هو يستا أقدر طبعا إذا نحن نقول يا C5H10 معناه إذا محشان تبع molecular formula هذا نحن نقول يا C5H10 أو شن كربون يتبان هيدروجين so they have same molecular formula but لكن different structure لكن شن تودو isku mid ma aha way kala duwan yihiin ama ha ku kala duwan double bond ka meesha kaga yaal ama ha ku kala duwan branchiyada dhamaantood way kala duwan yihiin so they are isomers ka dabeecadiisa lagu yaqaana molecular formula waa isku mid ama number of carbon ka iyo number of hydrogen waa isaga mid laakiin maxay ku kala duwan yihiin structure there are 5 possible isomers of pentane shown above shan isomer ay leedahay oo macquul ah oo kor ku soo aragnay they have same molecular formula shantuwa waxay leeyihiin molecular formula isku mid oo ah C5H10 mid kasta wuxuu ka koobnaa 5 carbon iyo 10 hydrogen but laakiin they have different structure laakiin waxay leeyihiin structure kala duwan oo magaca waxa bedelaya wataan soo aragnay kii hor magaciisu muxuu ahaa benta 1 in kan labaadna muxuu ahaa benta 2 in kan saddexaadna wuxuu ahaa baasha loo yaqaan 2 methyl benta 1 in benta 2 in saddexaadna wuxuu ahaa 2 methyl benta 1 in kii afraadna wuxuu ahaa 3 methyl benta 1 in marka shan bay ahaayeen structure-keeda ku kala duwanaayeen laakiin waxay isaga mid ka yihiin molecular formula oo ah C5H10 xabadan exercise-ka cidii isku dayda way isku dayi kadhaa kadibna answers-ko idinka sida nagu soo gaarsiin karo nagu soo gaarsiin jawaabahaaga hexane iyo heptine labadaas waxa qoraysa mid kasta intuu leeyahay inta possible isomer waa darowgalaysa waa sawiraysa structure-kii mid kasta intuu leeyahay mid kasta magaciisa raacinaysa hexane inta isomer ay leedahay wada qoraysa heptine inta leedahay ayaad qoraysa hadii la ahaydmo intaas waxa weeye waa isomers iyo alkene ay halka kaga baxaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ونكس.